baad aragtaan ragga aad iyo aad bacdama aan ku faraxsanahay farba inoo taagan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. soo dhawaada saaxiibayaal meel walba aad joogtaan waa oday xurshe. saaxiibayaal awalan waxaynu ku hormaraynaa caawo doorku inoo saaran yahay baad aragtaan ragga aad iyo aad bacdama aan ku faraxsanahay farba inoo taagan. muhiimaddu waxay ahayd inaynu helno wixii sababay iyo biyo dhiggeedu wuxuu ahaa iyo dadka ugu waaweynaa iyo horta sababa aas-aaska ayaa ka muhiimsaneed in loo sheego shacabka reer Puntland. xagga dhig waa ka gudbaynaa taa faahfaahinteeda mar kale ayaan ka dhiganaynaa. waxaa jira nin siyaasi Soomaaliyeed ah Kenyaan oo dhalasho Kenyaati haysta oo in badan faray ay ku godneed ayaa haddaba waxa la fahmi la'aa waxyaabaha uu ku taxalluqa amaba xaqiiqada biyadhiciisa iyo fikradihiisu sida ay u shaqeeyaan. nin la yiraahdo Cabdi Maxamuud Cumar Cabdi Ilay ee soo xukumay kilinka shanaad ee Soomaalidu ay degtay ee dowlad deegaanka Soomaalida ee Soomaali galbeed la isku yiraahdo soo xukumay markii dambana tacadiyo badan oo uu isagu geystay ama uu sabab u ahaa in badan xabsi ugu jiray dhowr sanadood ayaa wuxuu hadda ka hor ka hadlay ninka waa 15 sano ka hor ayuu ka hadlay. Cabdi Ilay ayaa ka hadlaya 15 sano ka hor maanta ayaa xaqiiqadiisii ayay marisay. Soomaalidu marka hore wax ma aragto markay maragta qofka wax u sheega kama maqlaan marqaatiga markay arkaan uu ruuxu isku marag faro uu waagu ku bariya. haddaba ila daawo waxyaabaha uu ka sheegay Cabdi Maxamuud Cumar ninka iyo wixii xaqiiqada ah amaba biyo dhiciisu yahay adiga ayaa laga rabaa markaa inaad dhameystirato. horta Faarax Macallin ninka la yiraahdo waxa weeyaan waa sida uu sheegay ma taqaanaay waxa weeyaan mobilka lacagta lagu shubto kaloon guri maxaa tiri call box samay kan gidaarka ku dhagan ee lacagta lagu shubto kol al-shabaab baa ku shubata kol waxa weeye maxaa ku rahaa cid kasta ku shubata. inaga xataa mar buu naga codsay inaan ku shubano laakiin waa ka diiday. isagu ma aha nin qarinaya ma aha Faarax ninka la yiraahdo horta waa call box. waxa xaqiiqa ah in anagu inuu call box yahay isaga laftiisa noo sheegay oo wararka qaarkood waxaan ku raacay in ay muhiim tahay in lagu shubto isaga laftiisa si dadban iyo si toos ah ugu sheegay Itoobiya anu call box baan hay cidii ugu shubata cidii waxa